sodohdii gubtay gabadhay sodohda u ahayd. qisada marka sidaan ayay ku bilaabanaysaa, waana qiso cajiib ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaaleyga qaaliga ah dhammaantiin waa idin salaamay meel walbo adduunka ka joogtaano. waa walaashiinu Maharuun iyo mar kaleetood. Please kanaalkayga hadaa ka hesha subscribe, laagta, commentiga, dhiirigelinta waa xaggiina. maanta waxaa inoo wadaa qiso cajiib ah. qisadaasoo la magac bahday sidaad kusoo aragteen bilaawgii, sodohdii gabadhay sodohda u tahay gubtay. marka qisada sidan ayay ku bilaabanaysaa. hooyo iyo wiilkeeda ayaa jireen maasha Allah, xariir oo wiil iyo waalid midka ugu mac ka dhaxeeyay. marka hooyadii wiilkeeda kaligeeda soo korisay, ayada usoo shaqeyn jirtay, iskoolay geysay, iskoolaadka iskoolka ugu fiicanay geysay. wiilkii waxbarasho hay oo bartay. maalintii dambe wuu weynaaday wiilkii, wuxuu bartay gabar. marka hooyadu waxay filaysay gabar caafimaad qabto, gabar qurux badan oo ilaahay lixdeeda lixaad tamaam ugu dhigay ay sugaysay. wiilkii wuxuu bartay gabar xoogaa xanuunsan oo markii hadlaysan hadalkeeda qofkii yaqaano le fahmay oo la fahmaynin, oo hadalka isku dardarayso oo bartay. marka gabadhii oo jeclaaday, xooga u jeclaaday, oo gabadhan barta noocaas waaye, xanuunkaasayna qabtaa. maamadii marka way ka xumaatay, marka gabarta xanuunsanay ka xumaatay. wiilkii gabadhii xooga u jeclaaday, jaamacaddu aadi raba xataa dib u dhigtay, ayadii loo ka fakaraa. maamadii marka waxay tiri gabadhan wiilkaaga waxbarashadiisa xataa ka hor istaagtay, faa'iido ma lahan. adiga maalinta dambe gabadhan ka haray ku tiri, si leef usoo hor istaagtay, gabadhan ka har ma kuga arki karo. wiilkii iyo hooyadu isku dagaaleen. adiga bil dhanay kala aamusnaayeen oo guriga ka tagay. kadib ay telefoonka ka wacday, hooyo soo gurigaaga kusoo laabo, gabadhaada waa kuu ongolahay, habeenaa casho u karinaa ii keen. wiilka marka hooyadii daacada u maleeyaa, gabadhii u keenay. gabadhii markuu u keenay wuxuu yiri aniga fadhiga iska fadhiyay, telefishinka iska daartay. hooyadii waxay tiri cashaa noo soo karinaa, jikaday gashay. waxay kadib gabadhii way ka daba istaagtay, waxay tiri sodohdaa la soo sheekayso ee jikada ugu daba tag, waxay caawinaada u baahan tahay ka caawi. gabadhii jikaday soo gashay, sodohdii way la hadashay. markaasay marka la hadashay, naa iga aamusay tiri, waxa ku hadlaysid ma u fahmayay, because gabadha awalba hadalkeeda lama fahmaynin, maxaasaan uga hadlaysaa. gabadhii way xanaaqday, marka hadalkeeda wax laga sheegay way murmeen. maamada marka digsiya dabka u saaran say sheegaysay ee qisada gadaal dambe ee ka sheegi doonto. digsiga baastaan ku karsanayay tiri, laakiin biyo lay ahaayeen, biyay karkarinaysay. biyay soo qabatay, gabadhii iga leexaa iriyay tiri, iga leexo biyahan yay kugu daadanayna, iga leexo. gabadhii marka ayada imaqli weysay. mideeda kale goono gaabanay wadatay, ayada u sabab ah in maxay ahaayeen ay gubato. adi maamadii digsiga biyii dafay soo siisay, gabadhii waxay tiri kasay biyaha iigu shubtay, iila soo aaday, anaa iska qabtay. marka gabadhii qaarka dambe ka gubatay, canjirada iyo lugaha iyo kubka iyo meelahaas dhan ay ka gubatay. hal lugaa welibana aada u daran, gabadhii lugihii ka gubatay. mideeda kalena waxayna ku ceysay gabadha waxa ay ahayd, because xanuunkan ilaaha u keena, gabadha ayada ma keensanin. adiga yaan war kugu daalinay. gabadhii marka maxkamad waxay soo saartay sodohdeed. markay maxkamadii soo saartay, islaantii waxay ku andacootay aniga ka leexaan iri, baastaan karsa rabay. adi marka sheekadii way soo cadaatay. wiilkeedii u imaaday. wiilkii wuxuu ku yiri hooyo aniga ma kaa filin, qafaa jecla inaad saan ula dhaqmaysid. adi hooyadii waxay tiri tan naag kuma noqonayso, waxbarashadaada adduunkaaga dhan aa loos garaysay. marka iska dhaafaan ku yiri, waad iga diiday, adaa igu qasabtay. marka wiilkii wuu yaabay, maadaama ay heshiiskii hooyada ugu dan lahayd inay gabadhan dhib u geysato, wiilkana waxba ma ka ogeynin. wiilkii wax marka ganaaxa laguma sameynin, laakiin hooyadii waxaa lagu ganaaxay 20,000. 10,000 oo maadaama ay ku ceysay gabadha xaaladeeda, iyo 10,000 ee gubitaanka ay gubtay aa lagu ganaaxay. 20,000kaas kunaa maxkamadii ka qaaday. qisadana sidaas ayay ku dhamaatay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kanaalkayga hadaa ka hesha subscribe, laagta, commentiga, dhiirigelinta waa xaggiina.